bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada jaalka maalmaha waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aada u xiiso badan. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay qiimaha ay leedahay in alla la tala saarto. qisadan waxay ku dhacday laba nin oo saaxiibo ah. labada nin ayaa waxay ku noolaayeen faqri aada u daran. maalin maalmaha ka mid a ayay waxay u tageen gabar uu dhalay nin boqor ah. gabadhan ayaa waxay caan ku ahayd musaacadada dadka masaakiinta iyo waxbixinta. labada nin ayaa mid weliba duceysan jiray. mid ka mid a labadooda wuxuu ku duceysan jiray allow fadligaaga xaggiisa iga arsuq, halka midka kalena uu ku duceysan jiray allow gabadha boqorka fadligeeda xaggiisa iga arsuq. gabadhan ayaa waxay maqli jirtay mid weliba wuxuu ku duceysanayo, waxayna siin jirtay midka dhahayo allow fadligaaga xaggiisa iga arsuq 2 diinaar, midka dhahayana allow fadliga gabadha boqorka iga arsuq waxay siin jirtay 1 xabo oo digaag ah oo dhexdiisa ay ku jirto 10 diinaar oo dahab ah. midka digaaga la siiyo wuxuu ka iibsan jiray ninka saaxiibkiisa oo 2 diinaar la siiyo, isaga oo aanan ogeyn waxa dhexdeeda ku jiro. 10 maalmood ayuu sidaa uga iibinayay. maalinkii dambe ayaa gabadhii boqorka waxay u yeertay ninkii ay digaaga sii jirtay, waxayna ku tiri soo kuma kaafin fadligeena. markaasuu wuxuu yidhi aaway fadligaaga. waxay ku tiri soo kuma siin jirin maalin waliba 10 diinaar oo dahab ah, soo kuma siin jirin digaag ay ku dhex jirto 10 diinaar. wuxuu yidhi maalin waliba digaaga waxaan ka iibsan jiray saaxiibkayga, wuxuuna iga siin jiray 2 diinaar. gabadhii way ku qosashay, waxayna ku tiri xaggeena ayaad wax ka dalbatay, allana wuu ka xarimay. ninka saaxiibkaagana alla xaggii ayuu wax ka dalbaday, alla ayaana deeqi oona ka kaafiyey faqrigiisii. qisadan waxaynu ka faa'iideynaa inay habboon tahay mar weliba tala saarashada alle subxaanahu wa tacaala. ruuxii dadka tala saarto waa uu lumaa, ruuxii maalkiisa isku halleeya waa uu faqriyaa, ruuxii cilmigiisa ku faana waa uu lumaa, ruuxii naftiisa tala saartana waa uu daalaa. balse ninkii alla tala saarto ma lumo, ma faqriyo, mana hoogo. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gamaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaa cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.